صدوا هذا. السلام عليكم. سلية مال في عين سبسكرايب ما صارت نا وليه وكسوغا سو صار وكسوغا أنا هذا اللي هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدوا هذا سلية هاي مال في عين waxaan rabi lahaa inaan idin sheego 5 shay oo aan isleeyahay dhalinyarada yaryar ee magaalada ku nool magaalada Muqdisho ka hadlaya iyo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliyeed shaqo abuur uga caaw haddaad tijaabsid ay ku hagaagto eeda comment ku rab eeda waxa ii sheegtay waa ku faa'iido dheh hadday hagaagi weysan waxa tiraahdaa eeda lugooyada nagala fariiso labada comment baa qaadanaya it is no easy labada comment baa ogolaani eedo waxa sidaayay waxba ma ahay igala fariiso hadalka daa tiraahdaa fine enough hay raalo baan ku leeyahay eedo waxaagi waa ku bulaal ra'yigaaga daa tiraahdaa dawaaba bulaashay okay let's start okay shaqada ugu horeeyay aan jeclaan lahaa inaan idin kula taliyo waliba hadda xilli samar soo socdo oo qurbo joogta dhan wadanka u soo laabanayso ama Hargeysa ku soo laabtaan ama Xamar ku soo laabtaan ama Gaalkacyo ama Dhuusamareeb ama maxal Calaado ama Garowe ama Boosaaso ama Caabud Waaq meeshay ahaataba dadku waa soo socdaan meelay degaan u baahan yihiin meelay saxdaan u baahan yihiin hotel $50 ahna dad awoodina jira qaasatan dadka oo dhalinyarada oo yaryar oo shaqada hadda bilaabo nolosha hadda u bilaabatay hotel $50 habeen lagu seexanay ma awoodaan. Why not register Airbnb marka ma Airbnb ku si fiican ugu biirtaan waa arka Xamar dhowr hotel yaryar iyo qolal iyo ku jira waxaan kaloo arkay in Hargeysa arkay Airbnb ee qolal yaryar ku jiraan wali qaali ay yihiin Airbnb-yada adduunka inta waa ka raqiisan yihiin haddaad channelkayga gasho waxa arkaysaa Airbnb oo Bali aan ka deganaa oo qol iyo musqushiis iyo jikadiis iyo wixiis iyo gardenkiisa aniga kaliya ii xiran tahay habeenkii $7 uu ahaa bishii oo quraac maya afur iyo suxuur igu jiro bishii oo dhan markii la isugu kay xisaabiyay marka Airbnb bil ahaan markii la isugu ka xisaabiyay lacag baa ka dhinmaysa moogtahay $120 bay isugu kay timid bil oo dhan markii la isugu kay xisaabiyay $120 fahmi marka qofka waxa haysta qol uu seexdo musqul nadiif ah haysta $10 iyo $9 dadka cunto ma ba idin ka rabaanba laakiin haddii aad leedahay qol oo qolka banaan yahay samarkiina hadda la soo galay oo dadku soo laabanayaan gurigaagana qolka banaan yahay musqusha nadiifi qolka nadiifi qarashka ku galaayo waa waxyaabaha qolka ku nadiifinaysid dhiinsoolayaasha iyo foodarayaasha barkimaha iyo barkimo cusub qofka barkimaad ku seexanayso qofna kuma seexanayo barkimo cusub aad keento intaas waa qarashka kaliya aad galaysid ma garad qolkaaga nadiifi haddaa xataa hooyada aabaha la degantahay waxaad tiraahdaa qolkaaneeti saasaan hooyo ku samaynaya ama aaba ka samaynaya habeenkii $10 $15 haddaa ka dhigta xataa inkastoo qaali weliba tahay laakiin dhaqaalihii baa sida Soomaaliya ah haddaa $15 ama $10 habeenkii ka dhigto isbuucii imisa ku soo galaysa bishii imisa ku soo galaysa saddexda bilood ee xagaabaxa ah samarka ah imisa ku soo galaysa hore miyaa u haysatay intaas isku day inaad samayso waa ra'yi fiican soo tan kale idinku talin lahaa waxa waaye haddii aad samayn karto inaad bilowdid picnic camal maalin joog camal aad isregister garaysid oo dadka aad u fahamsiisid inaad qofkii raba aad maalin joog u samayn kartid kasoo qaad wadada hotel degan maalin walba hotelkay ka cunayaan maalin walba hotel kale wax ku cunayaan maalin walba qofka hadii la yiraahdo maanta waxaan ku sameynaynaa maalin joog lacagtaada baxso lacagtana soo hormari lacagta lagu soo hormariyo lacagtana soo hormari dirinan ku qaada wabiga jiinkiisan ku dhiga afgooya ami kale balcad wabiga jiinkiisan ku dhiga ami kale tood jazeera aan dirin ku dhiga cuntadaadii waxaagan anaa ku wada hotelkaagan kuugu imaana aan ka soo wada على قف $20 $30 iskaba dhehba adig raqiis ay ku tahay cuntada maamooyinka ka sii gado bahalkiga kuleelka ku qaad kululeyso ku qaado dhowr kululeyso kala duwan baasta daaqadaysid xogaa yaro hilib daaqadaysid in salaato gooni u qaad qudaar yar gooni u qaad cabitaanka bac ku qaado
galaasi iyo koobab ay hadhow qofka ku cabay iyo suxuun waaweyn waxa dadka cuntada ku siisidna hore u sii qaado bajaaj saar adiga maca cuntadaada maca iika bajaaj layaal leh kor bajaajku waa kaaga raqiisasantaa lacaga ku baaqanaysa maahano markaa meesha geysida dirinta u fidisida cuntada siisidna dadku waxay ma ka fakarayaan keliya cuntaa cunay maqaayada fariista keliya cuntaa cuntay dadka waxaa waaye neecawdaasay fadhiyaan iyo geed hoostiisa iskaga nasanayaan iyo sheekadii iyo biyahaas ama badii meeshaas biyaha hirki soo garaacaya ama kala webiga meeshaan inta qulqulaya waxaas quruxdaas yartay dadka iska rabaan moogtaa adigana dhaqaalaha kaa soo galaa teeda kale dhaqaale adiga yacni kaa baxaayo oo markaas lagaa rabo ma leh dadka lacag hadday kuusoo horumariyaan waxa cuntada ku gadaysid lacagtooda lee waaye waxaa dermada ku dhigaysid lacagtooda lee waaye waxaa bajaajka ku saaraysid lacagtooda waaye kistaadana waa kaaga soo hartay caqli waayno waxa keliya adiga lagaa rabo waa laba shay inaa aamin tahay qof la aamini karaa aad tahay aaminka muhiim wax walba oo qabanaysa yaa ka aaminka ka muhiimsan in lagu aamini karo beenlo 120 magac kala leh aadan ahayn ballantana ku fiican tahay qofka daa tiraadid 10 aroornimo ku imaanaa 10 aroornimo istimaad yani 4 saac subaxdii ku imaanaa qofka daa tiraadid 4 saac iyo 50 ma aha 4 saac iyo 20 ma aha 4 saac waa taas ku fiican tahay tan kalena aan nadiif tahay oo maryaha xiran tahay iyo jirkaaga iyo wax dhan ay nadiif yihiin qofka aragiis ku deeqaa oontiisa ku deeqaa sooma tan xigta oo aan isleeyahay way caawinay waxa waaye tan waxay qusaysaa dadka magaalooyinka waaweyn degan kasoo qaad xamar degan tahay ama hargeysa degan tahay ama baydhaba degan tahay magaalo weyn magaalo oo qofka kaligiis uusan socon karin oo u baahan yahay qof magaalada kala tusa waxa u baahan tahay inta u tagto hoteelada qaasatan aad tiraahdo waxaan ahay tour guide maxaa la dhahaa qofka oo dalxiisaya qofka oo magaalada kala tusaya haga ma lahaa mise hogaamiya lahaa arino waxaan ku tilmaamo haga dalxiisa dadka ay dhaheen facebookan soo geliyo waxaan dhahay tour guide maxaa la haga dalxiisa la yidhaha marka dalxiis hage ama haga dalxiis noqo waxaa u tagtaa hoteelka waxaa ku tiraahdaa dadka kugu soo degaya aan magaalada kala aqoonin tour guide u noqonaa hagaan u noqonaa magaaladan ku kala hagaaya ee ugu soo xiriiriya nambarkayga waa kana haddaa u baahan tihiin baasaboorkayga isleediin qofkan qof yani la aamini kara miya baasaboorkayga waa kana qofka calaa qof ama $5 aan ka qaadanaa dadka waxay ku xirantahay intay yihiin hadduu hal qof kaligiis yahay waxaa waaye $20 u siinaa laakiin hadday 5 6 7 qof yihiin calaa qof $5 camal ay kusoo aadayso ama calaa qof $10 camal ay kusoo aadayso dadka wad magaalada tus laakiin adiga marka hore inta aadan dadka aadan wadin ama aadan shaqadan bilaaban adiga magaalada baro magaalo aadan ka seenin oo meesha bajaajka laga raacayo maqaayada oo laga sheekeeyo kaliya ka taqaanin macna ma dhalayso magaalada baro taariikhdeeda baro meelaha qadiimiga ah oo dadku wax qadiimiye rabaa inay arkaan meelaha qadiimiga ah ee barashada u baahan baro masaajidada qadiimiga ah oo kumaan maxaa la dhahaa boqolaalka sano dhisnaa baro wadooyinka magacyadooda baro magacyadii talyaanigu u baxshay magacyada Soomaalida u taqaan baro taariikhda Muqdisho ama taariikhda Baydhabo ama taariikhda Hargeysa baro kabacdi dadka magaalada geey waxaa kaloo inta aadan magaalada geyn u baahan tahay inaad sii ogaato meeshii aad dadkan hadday mas'uul u baahdaan oo kale meeshay suuliga ka geli lahaayeen ana qofka mas'uul u sii diyaariso meelahaas dadka meelaha eriyada degan aan la hadasho aad tiraahdo tour guide ahay calaa qof $1 ama $2 mas'uushiis adii jabkaaga ka baxay dadka jabkooda ma ka baxayso adii jabkaaga ka baxay laakiin waa inaad dadka hadday mas'uul u baahdaan badanaa uma baahanaan 3 saacadood qof mas'uul u baahanaa ma jiro laakiin hadday u baahdaan ay dhaclaan ama caruur yaryar ay wataan waa inaad mas'uul u heli kartid waa inaad taqaano meelaha geedaha la harsan karo oo dirin intaa wado aad u hoos dhigi karto waa inaad taqaano meelaha ugu dhow cabitaan qabow iyo ka heli karaan intay fariistaan dadka markay daalaan aad tiraahdo wax qabow ma cabaysaan adigay dantaada ku jirtaa kadib dadka wad oo magaalada tus laakiin magaalo aad taqaano tus lacagta aad ka qaadanaysa ha ahaato lacag ay hadhow markay wadankii ay ku laabtaan ama dadka la sheekaysanaya ay yidhahdaan wallahi maanta wiil yaroo ama gabar yaroo cajaa'ib lahaan la kulmo oo magaalada say u taqaano aada yaabaysid taariikhda say u yaqaanaan magaaladiina barta dhulkiina barta lacag baliskaarsa ma lagu samaynayo lacag waa samaynaysin laakiin waxaa ka horeysa inaad adiga waxay taqaano fair enough maano tan saddexaad yani tan afraad aan dhihi lahaa waxaa waaye weliba tan waxay anfacay gabdhaha
aad u anficeen naani noqdo dadkan oo wadamadan qalaad ka imaanaya hooya waxay soo wadanaysaa 5 caruur kan may qabataa kan may celisaa 2 sano madaxa ka soo cunaayeen oo wadan kale la joogtay qaatiyaan bilaahi taaganta hadda hoteelada inta tagtaan tiraada okay dadka idinku soo dagaaya ama xataa Facebook iska xayeysiisan oo tiraadaan dadka xamar imaanaya ama hargeysa imaanaya ama baydhabo imaanaya ama garow imaanaya oo caruurta wata annaga caruurta ku haynayna anaa ku haynaya caruurtaada haddaadan igu aaminayn caruurtaada badanaa qofku aaminaya male don't take offense ilmahayga qof ma ku aaminayo haddaadan ku aaminaynin idabagal waxaad tiraahdaa ma u baahnid inaa igaga tagta caruurtaada anaa kaa daba wadaayo adiga iska musheex anigana ilmahan kala celcelinaya madax xanuunka anaa qaadaya adiga naso calaa cunug da'day ku xir kasoo qaad ilmaha waaweyn oo kale aan ku baahnayn oo qof walba telefoonkiisa kor aa ka ilaalinaysa telefoonku cayaaraya waa taqaana ilmo waaweyn telefoon lee lagu cayaaraa $5 ka qaad ilmaha yaryarka ah oo madax xanuunka kugu ridaayo oo in la kala celiyo u baahan oo in xafaayad laga bedelo u baahan oo in caano la siiyo u baahan kuwaaseeti lacag fiican ka qaada saacadii hadduu hal cunug yahay $20 ama $10 saacadii hadduu 2 cunug yahay 25 hadduu 3 cunug yahay 40 yacni lacagta ha sii yaraato damoor oo ilmuhu bataan damoor lacagta ay kugu yaraato ayagana ay u fahmaan kasoo qaad 8 cunugay wadataa aad tiraahdo calaa cunug $5 isii adiga saacadii $40 kugu soo baxday saacadii $40 iskaarsa maaha ayadana waxay isleedahay $5 waay shanta iyada eegay 40 ma eegayso shanta eegaysaa waa trick waay marka saasaad samayn kartaan shaqo nooc ka mida waay adinkaa shaqada abuuran kara ma aha inaa intaa meel fariisataan aad tirahdaan aniga degree heblow aan soo qaatay aniga PhD aan wataa ani xafiis dowlaan fariisana xafiis dowlo who cares xafiis dowlo yaaba xafiis dowlo fariistaba ayaan taanay qof jaahil leh xafiis dowlo ku mashquula shaqada inaa adiga samaysatid waa jaabkaaga inay ka soo baxdo waay dadkaan aad ku fikiraysaan inaa iyakoo kale noqotiin oo wadanka aad ka baxdaan oo aad tahriibtaan oo adduun aad martaan silaciisa xariir waxaana hadda idiin sheegaya lee sameeyaan shaqooyinka ugu horreeya aan markaan yaraa aan samayn jiray naani ahayn cunuga ahayn jiri I think waxaan jiray 19 cunug yar ahayn jiri waxaan kaloo samayn jiray warqadaha xayeysiiska la turtuuri jiray waa shaqooyinka waxaan dhan aan idiin sheegayo waxaan soo qabta waay waxa oo igu cusub ma aha waa waxaan ka saldoonay serviceyaha aad bixinaysid adeega aad bixinaysid hufnaantiisa adiga hufnaantaada ballanku wanaagsanaantaada aaminkaagana way ku xiran tahay lacagta way ku kordhaysaa markay dadku ku bartaan adiga waxaan ku leeyahay $5 $10 waa yeesoosa ku bilow laakiin markay dadku ku bartaan lacagta way ku kordhaysaa shaqadan adaa abuurtay qofna kuuma abuurin tour guide ku noqo Airbnb ku samayso waxa dhanba hal mar xataa hal shaqo ha ku ekaana 9 shaqo Airbnb-ga furo Airbnb-ga laftirkiisa dhexdiisa markay dadka kula soo degaan waxaa tiraahdaa magaaladan oo ku baraay $5 ku soo dar meel inta ahaan bigna ku geynahay 5 kale ku soo dar ilmaha maanta annaka ka hayneen 5 kale ku soo dar 5 kale ku soo dar leeysa u dhaheys qofka habeenkii $100 ka tumo marka intaas hadaa isku helaysid dadka ka dhaadhiciya dadka saa lacagto yani dadkan imaanaya oo wadamadan qalaad ka imaanaya oo maxaa la yiraahdaa lacagtoodii wata oo haddana lacagtii la laabanayo dadkan lacagtii aysan la laabanin ka furta nasraba allah ka dhiga hadaa idin imaado furta laakiin caqli iiga furo yani waxa uu maalaa yacni oo soconaynin hayla imaanin fikir fiican la imo caqli iiga furo soo bax intaan ku siinaa soo bax Airbnb-gayga deg soo bax waxaan ku geynayaa afgooye si fiican ay iga furan kartaa lacagta maano waa bixina markaas lacagta intaasay inooga eg tahay 4 maado aad shaqada ku samayn kartaan samarkaaneti waa idiin sheegay shaqo wacan qeyr idin rajaynaya subscribe haddaad samayn kartaan subscribe gareeya commentiga dhaafa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu